Burkina Faso in ka badan 10 askari ayaa la wareegay telefishinka qaranka ee dalka Burkina Faso xilli dambe oo Jimce ah, iyagoo shaaciyay in Colonel Paul Henri Santiago Tshimba oo ah hogaamiyihii dalka ku qabsaday inqilaabka militari ee isku bedelay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi ay xilka ka tuureen. 9 bilood ka hor ayay ahayd markii Colonel Tshimba uu inqilaabka ku qabsaday xukunka dalka Burkina Faso. War qoraal oo laga akhriyay telefishinka ayaa lagu sheegay in Kibet Ibrahim Traoré uu yahay hogaamiyaha cusub ee militariga ee dalka Burkina Faso. Hogaamiyaasha cusub ee militariga ee Burkina ayaa sheegay in la xiray dhammaanba xuduudaha dalka, isla markaasina dalka lagu soo rogay bandow ka bilaabanaysa 9 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo, waxaanay ku dhawaaqeen in la kala diray dowladdii ku-meel gaadhka ahayd iyo golihii qaranka. Madaxweyne Tshimba iyo xulafadiisa ayaa hore u inqilaabay madaxweyne si dimuqraadi ah loo soo doortay, isagoo la yimi ballanqaadyo ah inuu dalka ka dhigi doono mid ammaan ah. Si kastoo ay ahaataba, rabshadaha ayaa sii socday si aan kala joogsi lahayn, waxaana sii kordhay niyad-jabka ay bulshadu ka muujisay hogaamintiisa. Iyadoo la waajahayo xaalad amni oo kasii daraysa ayaa arrintaasi nagu dhiirigelisay haddii aanu nahay saraakiisha sarsare iyo saraakiisha hoose ee ciidamada militarigu in aanu tallaabo qaadno, annaga oo rabna in aanu ilaalino amniga iyo sumcadda dalka, ayaa uu yidhi afhayeen u hadlay ciidamada inqilaabka dhigay oo lagu magacaabo Kebet. Kulan ayay isugu iman doonaan si loo ansixiyo axdi cusub oo ku-meel gaadh ah, laguna soo xulo madaxweynaha cusub ee Burkina Faso yeelan doonto. Madaxweynaha la sheegay in la inqilaabay Tshimba ayaa hadda uun ka soo laabtay golaha guud ee qaramada midoobay isagoo ku matalaya dowladda Burkina Faso. Tshimba ayaa khudbadiisii golaha guud ku difaacay afgembigii uu sameeyey bishii January, isagoo ku tilmaamay inay ahayd arrin ku saabsan badbaadada qaranka ee dalka Burkina Faso, sida uu ku sheegay khudbadiisa. Cabdirasaaq Axmed Cabdi Koronto.